السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مالين wanaagsan dawada meel kasta waa durida nagala socotaan maalmo khamiis bisha Oktoobarna waa 2 sanad 2025 qodobada rasmi wada doontaana waxaa kamid ah xaaladda magaalada Zeelax ee gobolka Sirel ayaa laga dayranaya waxaana saacadihii ugu dambeeyay afka furtay gudoomiyihii hore ee xisbigii markaasi uciid Faysal Waraabe siyaasi markaasi caanka Soomaaliland gudaheeda iyo guud ahaanba Geeska Afrika waxaana uu ka hadlay guud ahaan xaaladda ka taagan magaaladaasi Zeelax iyo fariimo uu kala diray markaasi labada dhinac ee halkaasi isku haya iyadoo ay dadka qaar tilmaameen in dhalinyaro hubeysan marka halkaasi ay gaadhay waa sida markaasi beesha ama beelaha halkaasi beel kamid ah markaasi ay tilmaantay ama beesha Ciise ay sheegtay in dhalinyaradaasi laga soo diray dhanka magaalada Boorama balse ay ka amar qaadanayaan fiqi iyo soo kale dowladda federaalka ee Soomaaliya halkaasina ay ka socoto hawl aan ka warhaynin dowladda Somaliland hadaba wararkaasi ayaan dul istaagi doonaa iyo xaaladda magaaladaasi iyo dhinaca kale waxaa guud ahaanba dadka reer Laascaanood iyo saraakiisha ciidanka iyo guud ahaan markaasi mas'uuliyiinta ayaa xilligan quus ka taagan si ay wararku tilmaamayaan maamulkii cusba ee laga sameeyay magaaladaasi Laascaanood saacadihii ugu dambeeyay qaar kamid ah saraakiisha maamulkaasi ama guud ahaan magaalada Laascaanood ku sugan ayaa waxa ay baraha bulshada iyo ku baahinayay guud ahaanba warbaahinta hadallo iyo qoraallo markaasi kala duwan oo muujinaya quus iyo inay markaasi ka sii niyad jabayaan maamulkii cusba ee halkaasi laga sameeyay hadaba waa sidee xaaladda ayaan eegi doonaa iyo xaaladda ka jirta magaalada Laascaanood iyo guud ahaan maamulkaasi miyuu burburay dhinaca kale waxaan soo qaadan doonaa Xamdoobe ayaa shuruud cusub waxa uu ku xidhay wadahadaladii iyo soo kale heshiiskii la filayay inay wada gaadhaan Xasan Sheekh Maxamuud waxaana heshiiskaasi hadda la leeyahay wararka soo baxaya waxa uu qarka u saaran yahay in uu burburo ama lagu kala tago shuruudaha ayaan eegi doonaa guud ahaan Xamdoobe uu soo dhigay xilligan dhinaca kale gabadh Soomaaliyeed ayaa u gacan gashay ciidamada Yuhuudda saacadihii ugu dambeeyay gabadhan ayaa qayb ka ahayd dad gargaar u waday marinka Gaza oo dooma saarna waxaana saacadihii ugu dambeeyay ciidamada Yuhuudda ay tilmaameen inay qabteen dhammaan doomiyihii dadkiina markaasi la geeyay qayb kamid ah markaasi meelaha ay gacanta ku hayaan Yuhuuddu hadda waxaan eegi doonaa gabadhan iyo sheekadeeda iyo arrimaheeda ayaan soo kala soo qaadan doonaa iyo sababta ku kaliftay in guud ahaanba ay halkaasi tagto iyo deegaanka ay kasoo jeedo ayaan soo kale aan eegi doonaa iyo soo kale dibadbaxyo waaweyn ayaa dunida ka soconaya maanta dibadbaxyadan ayaa waxa ay ka dhacayaan caasimadaha wadamadii ugu waaweynaa qaaradda Yurub waxaan soo qaadan doonaa hadaba dibadbaxyadan iyo waxay ku saabsan yihiin soo kale eegi doonaa qodobaas iyo qodobo kale faahfaahsan ee barnaamijka ku baqri doontaan saaxiibayaal soo dhawaada aan ku bilownay wararka naga soo gaaray magaalada Zeelax ee xarunta gobolka Sirel ayaa waxay tilmaamayaan in guud ahaanba weli magaalada uu ka taagan yahay buuq la xiriira dhinaca markaasi magaaladaas labada qabiil ee wada degayay walow qabiilba qabiilka kale uu ka sheeganayo oo markaasi Samiroon iyo Ciise isku hayaan magaaladaasi Zeelax gacan ku haynteeda iyo guud ahaan markaasi maamulkeeda iyo cid u badanba gobolada galbeedka Soomaaliland inta badan sida lagu yaqaan waxay ahaayeen gobolada markaasi degan dadku markaasi ay yihiin dad nabadda jecel is markaasi guud ahaan bay ixtiraama wax dhibaato iyo shaqaaqa oo muddooyinkii dambe markaasi ka dhacay ma aysan jirin way jireen bariye ay soo mareen markaasi xasarada iyo dagaalo ay soo mareen way jireen balse muddooyinkii dambe waxay ahaayeen meelaha ugu nabdoon dadka ugu nabadda jecel isla markaana ugu horumarka badan Somaliland oo meeshu haddii nabad iyo xasilooni ka jirto iyo wada noolaansho uu ka jiro waa meel horumar markaasi aad ugu dhow ama horumarka ay sameynaysaa uu xawl yahay hadaba magaalada Zeelax oo markii hore looga cabsi qabay in quwado shisheeye intay kusoo duulaan markaasi ay magaaladaasi qabsadaan oo guud ahaan markaasi magaalada ahayd magaalo Soomaali oo dhan ay indhaha ku wada haysay oo ilaashanaysay markaasi waxaa hadda ka dhax kacday Soomaalidii halkaasi ku wada nooleed hadaba maxaa keenay la isweydiinayaa ama yaa abuuray guud ahaanba xaaladan iyo xasaradan iyo arrinkan hadda kacay muxuu yahay la isweydiinayaa xageesa ka socda waxa dadka qaar ay ka shakisan yihiin in quwado shisheeye ay gacmaha kula jiraan oo arrinkani laga shaqeynayo oo ay tahay xaalad la abuurayo dhinaca kale waxa iyaduna shaki kala ah in dowladda federaalka ee Soomaaliya ay qayb ka tahay dadka xaaladda abuuraya ama guud ahaan cidda xaaladda abuuraysa ee ka abuuraysa markaasi gobolada galbeedka Somaliland waxa soo kale iyaduna shaki kale uu ka jira dhanka Djibouti oo leeyahay Djibouti lafteedu qayb ay ka tahay markaasi guud ahaan xilligan meelaha xaaladda abuuraya ee doonaya markaasi in Somaliland
xilligan tallaabooyinka ay qaadayso in la hakiyo ee weliba ku aadan dhinaca badaha iyo guud ahaanba marinada caalamiga ah. magaalada Zeelacna hadda waxay wararka qaar tilmaamayeenba in madaxweyne Cabdiraxmaan Ciro uu u raadinayo guud ahaan maalgashi in lagu sameeyo magaaladaasi oo deked weyn oo caalami markaasi laga sameeyo, oo waxay qayb ka tahay safarka madaxweyne Cabdiraxmaan Ciro wadanka guud ahaanba isaga Imaaraadka Carabta uu ku joogo ayaa la leeyahay. xogahaasi oo dhan markaasi waa xogo wada jira oo guud ahaan markaasi ay la wada tabinayo, waxaana ay u muuqataa markaasi magaaladaasi inay tahay magaalo haddii maalgashi loo helo weliba maalgashigeeduna uu yahay mid soo jiidanaya cid walba, maadaama magaaladu magaalo taariikhi ay tahay, meel istaraatiiji ay ku taalo, isla markaana guud ahaanba waxyaabo badan ay magaaladaasi la gooni tahay. haddaba arrimahaasi kala duwan ee jira ayaa la sheegay in guud ahaanba dadkii halkaasi deganaa damac badan oo galay, damacaasina uu guud ahaanba keenay in la kala sheegto magaalada oo cid walba ay iyadu tilmaanto markaasi in magaaladaasi ay leedahay. dib haddii loo raaco oo taariikhdeeda la baadho magaaladaasi yaa degi jiray, yaa markaasi guud ahaanba la ahaan jirayna waa guud ahaanba waxay noqonaysaa xog kale oo barnaamijyadeena kale markaasi aan guud ahaan ku tabino haddii markaasi lasoo codsado oo aad noo dirtaa markaasi guud ahaanba shaqadaasi iyo in magaaladaasi lasoo baadho taariikhdeedii hore, maadaama Zeelac ay tahay magaalo caan ah, meel markaasi taariikh ahaan la heli karayo oo markaasi guud ahaanba la ogaan karayo. si kastoo xaalku noqdoba weli isjiidjiidkii iyo xaaladii way jirtaa, dadka halkaasi wada deganna waa dad walaalaha wada dhashay isla markaana isdhalay oo muddaba isdhex deganaa, marka in dhibaato ay dhex martana waa guud ahaanba wax laga qurux badan yahay. magaaladaasi haddii horumar iyo guud ahaanba ay hesho maalgelin iyo magaaladaasi horukac haddii heshana cid walba oo halkaasi ku nool waa ay soo gaadhaysaa oo wixii Ilaahay uga qoray ayay ka qaadanaysaa. marka in guud ahaanba xilligan xoog loo kala sheegto wax habboon ma aha ayaa guud ahaan fariin ahaan loogu diraya. dhinaca kale Faysal Cali Waraabe oo ah siyaasi caan ah oo markaasi guud ahaanba siyaasadda Somaliland muddo kusoo jiray ayaa waxa uu tilmaamay in guud ahaan Somaliland ay dowlad leedahay isla markaana ayna ahayn qabaa'ilo, guud ahaan cid walba waxay doontaa ay sameynayso. waxa Somaliland isku haya ee guud ahaanba kala hayana inay tahay dowladdaasi u dhaxaysa ee dadka markaasi u dhaxda ah, walow qabiilka markaasi ama beesha Ciise ay eedeynayaan madaxweyne ku-xigeenka oo ay leeyihiin isaga ayaa hawshan ka dambeeya, haddana madaxweyne Cabdiraxmaan Ciro madax meel ka sareysa oo la taabanaya ma jirto, isaga ayaa laga doonaya markaasi inuu xalka kama dambaysta ay halkaasi uu keeno magaaladaasina guud ahaan dadka halkaasi ku wada nool ay nabad ugu wada noolaadaan. waxaa hadda laga shaqeynayaa nabadda magaalada Ceergaabo ee xarunta gobolka Sanaag oo guud ahaan markaasi hadda ay ergooyinkii iyo howlaheedii la wadaa sidii loogu wada noolaan lahaa oo qabaa'ilada kala duwan ee ku wada nool ay ugu wada noolaan lahaayeen. haddana in Zeelac markaasi ay kusoo biirto waa wax markaasi aanan habbooneyn ayaa la leeyahay. dhinaca kale magaalada Laascaanood saacadihii ugu dambeeyay markaasi waxaa ka taagnaa buuq dhinaca la xiriira markaasi maamulkii cusbaa ee halkaasi laga sameeyey. waxaa dadka qaar ay saluugsan yihiin weliba sida wararku ay nagu soo gaadhayaan ama hadda markaasi ay xoguhu tilmaamayaanba saraakiisha iyo dadka iyagu maamulkaasi hore ugu soo jiray ama magaalada Laascaanood ka soo dagaalamay ama dagaaladii kala duwan ee halkaasi ka dhacay galay ayaa hadda ka muujinaya markaasi saluug aad u badan waxa ka socda magaaladaasi Laascaanood. saraakiisha ka hadashay waxaa ka mid ah oo iyagu guud ahaanba tilmaamay inaanay ku qanacsaneyn waxa halkaasi ka socda. nin dhalinyara oo markaasi lagu magacaabo ama guud ahaanba ka mid ah saraakiisha maamulka magaalada Laascaanood qoraal uu soo qoray waxa uu ku sheegay SC Khaatumo Ilaahay yaa mar noo soo celiya magacii xalaasha ahaa iyo calankii xalaasha ahaa. taliyihii hore ee booliska Khaatumo weeye Sareeyagaas Cabdi Danguudle ayaa markaasi ninka lagu magacaabaa, waana taliyihii hore ee markaasi booliska ee Khaatumo, taasoo markaasi la tilmaamay in guud ahaanba uu ka mid yahay saraakiisha xilligan aadka aan guud ahaanba ugu kalsooneyn. waxaa sidoo kale xogaha naga soo gaaray tilmaamayaanba in xildhibaanadii iyo dadkii cusbaa ee magaaladaasi imaaday ee maamulkii lala samaystayba in hadda uu si kala tegay oo ayna jirin markaasi cid hadda joogta magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. xaalad markaasi kala tag u dhowna ay halkaasi ka taagan tahay. dhinaca kale wararka naga soo gaaraya dhanka Kismaayo, Axmedoobe shuruud cusub ayuu hadda markaasi keenay, saluug ayuuna ka muujinaya leeyahay, waxaana uu ka cabsi qabaa in Xasan Sheekh Maxamuud uu khiyaamo mar kale
sida markaasi hadda xogaha tilmaamayaan. Waxaa lagu heshiiyey markaasi heshiiska afka ahaa ee socday in ay dowladda federaalka ee Soomaaliya soo saarto warqad rasmi ah oo ay ku tilmaamayso in Axmed Madoobe uu yahay markaasi madaxweynaha maamulkaasi Jubbaland, isla markaana wadahadalku uu halkaasi ka bilaabanayo markii ay aqoonsadaan kadib oo guud ahaanba muddada uu xilka haynayaan ay magacaabaan oo intaas muddadaas ayuu xilka haynayaa. sidii dowladdii hore Farmaajo oo kale waxay sheegeen in laba sano markaasi uu Axmed Madoobe xilka haynayo, waa guud ahaan wax lagu xalaaleysanayo. marka Axmed Madoobe dhabahaas uu doonaya marka inuu maro, dhabihiina xasan sheekh maxamuud waa uu diidanaya leeyahay oo warqadii ilaa iyo hadda lama qorin lamana soo saarin. waana sababta hadda keentay markaasi hakadka iyo guud ahaanba in ay kala shakiyaan, iyadoo weli magaalada Nairobi ay ku wada sugan yihiin madaxdii mucaaradka. maanta ayuu shir uga socdaa magaalada Nairobi, mucaaradkii oo xaruntii samata bixinta ama guud ahaan guddiga samata bixinta oo halkan imaada qayb ka mid ah iyo Deni iyo Axmed Madoobe ayaa uu shir uga socdaa magaalada Nairobi ka hor inta uusan Axmed Madoobe aadin dhanka magaalada Kismaayo ee xarunta markaasi ku meel gaarka ee maamulkaasi Jubbaland. markaasi xasan sheekh maxamuud waxaa la doonayay inuu tago dhinaca magaaladaasi Kismaayo. dhinaca kale wararka naga soo gaarayay gabadh Soomaali ah oo qayb ka ahayd dadkii saarnaa doomihii u waday gargaarka wadanka Falastiin iyo weliba magaalada Gaza ayaa gacanta markaasi waxaa ku dhigay ciidamada Yuhuudda. Shifa Cabdi oo kamid ahayd dadkii saarnaa doomaha gargaarka ee marinka u socday ayaa lagu soo waramayaa inay kamid tahay dadka ay xidheen ciidamada Yuhuudda, siday markaas sheegeen xildhibaano ka tirsan midowda Yurub iyo Finland. gabadhan oo si joogto ah muuqaalo ugu soo gudbinaysay baraheeda bulshada ayaa muuqaalkii ugu dambeeyay ee ay soo gelisay waxa ay ku tiri haddii aad daawanayso muuqaalkan waxa aad ka dhigan tahay inay ciidamada Israa'iil ay afduubteen oo ay ii kaxeeyeen gudaha Israa'iil idan la'aan. xildhibaan ka tirsan markaasi baarlamaanka midowda Yurub oo la yiraahdo Jussi Saramo ayaa baahiyey muuqaalkeeda, sheegayna in doontii ay la socotay dhexda loo galay xilli ay maraysay biyaha caalamiga ah. isla muuqaalkaasina waxa ay baahisay Fatima Diarra oo kamid ah baarlamaanka Finland. waxaa lagu sheegay in si dhow loola socdo xaaladda doomahan, iyagoo markaasi ugu baaqay shacabku inay markaa isugu soo baxaan fagaarayaasha Finland. waxaana bilowday markaa isku soo bax iyo weliba barnaamijyo waaweyn oo maanta ka socda wadamada qaaradda Yurub qaybo badan oo markaasi kamid ah oo arrimahaasi markaa lagu diidan yahay Yuhuuddana markaasi fariinta loogu dirayo. hore waxaa la ogaa inay halkaasi gaadheen doomo gargaar waday oo ay saarnaayeen markaasi dumar iyo markaa ragba halkaasi iyagoo ku dhiiraday inay tagaan, horena u gacan galay markaasi Yuhuudda. waxaana la isweydiinayaa gabadhii ugu horeysay ee Soomaali ah ayay noqonaysaa ee tagta markaasi marinka Gaza. waxay noqonaysaa markaa qofkii ugu horeeyay ee Soomaali ah ee gacanta u gala markaasi Yuhuudda ama ay xidhaan. akhyaarta sharafta leh wada nagala socoto tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.